kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. Fanaaniinta Soomaaliyeed kooxahii kala duwanaa ay ka kala tirsanaayeen ayaa waxay ahaayeen fanaaniin iyo ku badanaa isla heesay heesa wadareed ama heesa talantaale ah, heesa koox ah ama mid lamaanaha isla qaaday. Haddaba fanaaniinta Waaberi oo iyada ahayd kooxdii ugu weyneed ee fanaaniinta Soomaaliyeed ay ka tirsanaayeen ayaa iyadu fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar oo ka mid ah hawdubyadii ugu adkaa uu fanka Soomaalida ku taagan yahay ayaa isagu waxa uu la heesay inta badan hablahii fanka Soomaaliyeed. Xasan Aadan oo isagu hablahaasi kula heesay heesa lamaana ah, kuwa talantaale ah, kuwa riwaayado qayb ka ahaa iyo kuwa kale oo si caadi ah idaacada loogu duubay ayaa sidaas oo tahayna waxaa jirta fanaaniin badan uusan la heesin fanaaniin badan oo habla ah oo caan ka ah geyga Soomaaliyeed uusan la heesin fanaankaasi weyn ee Xasan Aadan Samatar. Sababtii uu Xasan Aadan ula heesi waayay fanaaniintaasi hablaha ayaa waxaa lagu sheegaa sababo kala duwan. Dadka suugaanta Soomaalida u dhundaloola kana faallooda waxa ay sheegayaan inay taasi macquul ku tahay dhowr sababood. Mid ka mid ah sababahaasi ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay in nasiibka uusan isu keenin inay isla heesaan fanaankaasi Xasan Aadan iyo fanaaniintaasi kale ee hablaha ah. Iyadoo sidoo kale la sheego sabab kale taasoona la hubin ayaa waxa ay tahay in Xasan Aadan Samatar uu diiday dhowr fanaan oo ka mid ah hablihii fanka Soomaalida uu diiday inuu la heeso. Haddaba fanaaniintaasi hablaha uu Xasan Aadan la heesin waxaa ka mid ah fanaanada weyn ee la holin waayay ee Maryan Mursal Ciise Bootaan. Maryan Mursal waxay fanka Soomaalida soo bilowday dabayaaqadii lixdameeyadii, waxay ka mid tahay udubyada ugu adag uu fanka Soomaalida ku taagan yahay. Waxa ay la heestay inta badan fanaaniinta Soomaaliyeed iyadoo jiliinkeedii habsoo gudbinteedana ay ahayd number 1 qofkii ugu wanaagsanaa ee fanka Soomaalida. Maryan Mursal Ciise Bootaan oo iyadu Xasan Aadan aanan wax hees ah la qaadin ha ahaato mid lamaana ah iyo waliba mid kale oo iyagu ay ku heeseen si koox ah. Haddaba fanaanadaasi ayaa iyadu waxay ka mid tahay fanaaniinta aanan la heesin fanaanka weyn ee Xasan Aadan. Sabab kasta ha lahaato oo nasiibka isu keeni waayo ama waliba sidoo kale waqtiga, laakiin ilaa iminka lama hayo idaacadana uma duubna hees ee si lamaana ah oo talantaale ah u qaadayaan fanaanka weyn ee Xasan Aadan iyo fanaanada kale ee Maryan Mursal Ciise Bootaan. Sabab kasta ha lahaato sababtii ay wada heesi waayeen, laakiin waxaa la tibaaxayaa in colaadi ama xurguf ka dhaxaysay labadaasi fanaan oo Xasan Aadan uu diiday inuu la heeso gabadhaasi codka dahabiga lahayd ee Maryan Mursal, ha ahaato riwaayad ama ha ahaato hees kale oo banaanka laga qaaday. Si kastoy ahaataba inagu waxaynu aaminsanahay inay ahayd waqtiga iyo nasiibka oo isu keeni waayay labadaasi fanaan aysan macquul ahayn. Sababta kale ee dad badan oo suugaanta ka faallooda ay ku sheegayaan in Xasan Aadan uu diiday inuu la heeso Maryan Mursal. Fanaanada labaad uusan Xasan Aadan la heesin waa fanaanada Zaynab Cige. Zaynab Cige Maxamed fanka Soomaalida waxay ka soo bilowday folklore dansigii kooxdii folklorka oo madaxda ka ahaa Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub iyo abwaankii Allah u naxariistay Abgaal Saciid. Abwaankii weynaa Allah u naxariistay Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub ayaa isagu keenay fankii kale ee Waaberi, isagoo ay ka qayb gashay riwaayadihii ugu badnaa uu abwaan Sangub sameeyay sidii Xuud Baaliqa Jaceylkii iyo Xisaab ku lahaa, Qabrigii Jaceylka iyo waliba Xuskii Jaceylka intaba. Fanaanadaasi ayaa waxay ahayd fanaanad cod dahabi leh, wax soo gudbinteedana ay ahayd mid ilaa iminka aysan gaadhaynin in badan oo fanaaniinta Soomaalida ka mid ah. Zaynab Cige Maxamed ayaa iyadu waxay ka mid tahay fanaaniinta uusan wax hees talantaale ah, wax hees lamaana ah oo talantaale ah uusan la qaadin fanaanka codka dahabiga leh ee ah fanaanka ugu heesaha badan fanaaniinta Soomaaliyeed Xasan Aadan. Sabab kasta ha lahaatee Zaynab Cige ayaa iyadu waxa aysan wax hees ah oo ay labadaasi fanaan qaadeen la haynin idaacadana u duubnaynin. Haddaba sababihii keenay in Zaynab Cige iyo Xasan Aadan aysan isla heesin Soomaalidu waa ay ku doodaa,
laakiin waxaa loo badinayaa inaysan waqtigii nasiibka isu helin labada fanaan oo aysan ku kulmin hees ay wada qaadaan. haddana dad kale ayaa waxay sheegayaan inay Zaynab Cige ka mid tahay fanaaniin dhowr ah oo hablihii fanka Soomaalida ka mid ah uu fanaanka weyn Xasan Aadan uu diiday in uu la heeso. fanaanada kale inuu soo qaadanayeen waa fanaanada maamada fanka Soomaaliyeed mid ka mid ah hablihii soo bilaaba fankan. Faadima Cabdilaahi Kaahin Maandeeq ayaa iyadu waxay ka mid tahay fanaaniinta uu Xasan Aadan wax heesa lamaanaha la qaadin. fanka waxay soo bilowday bilowgii 60meeyadii iyadoo ka mid ahayd udubyadii uu ku taagnaa fankani kana qayb qaadatay kobcinta iyo weliba kor u qaadida fanka Soomaalida. Faadima Cabdilaahi Kaahin Maandeeq oo iyadu in badan la heystay fanaaniinta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ayaa iyadu wax hees ah oo lamaana ah oo talantaali ahaan la qaadin fanaanka codka dahabiga leh ee Xasan Aadan. sababaha ay isu qaadin ayaa in badan oo Soomaalida waxa ay ku doodaan inay tahay sababo kala duwan, laakiin sababta ugu weyn oo inaga aynu soo qaadanayno waxaynu oranaynaa inay tahay inuusan waqtiga iyo nasiibka isku saacidin. inkastoo sababo kala duwan la sheego oo ay ka mid tahay in fanaanka Xasan Aadan uu diiday inuu la heeso. haddaba Maandeeq oo iyadu fanka in badan kaga soo horeysay Xasan Aadan macquul ma tahay inuu diido inuu la heeso. laakiin in badan oo fanka Soomaalida dadka ka faallooda waxay tibaaxayaan in Faadima Cabdilaahi Kaahin Maandeeq ay ka mid tahay dhowr fanaan uu Xasan Aadan uu diiday in uu la heeso. haddaba fanaaniin badan oo hablahaas ugu caansan ay ka mid yihiin ayuu Xasan Aadan diiday sida la sheegayo inuu wax heesaha la qaado, laakiin dad kale ayaa iyagu waxa ay tibaaxayaan inay ku timid sababo kala duwan oo nasiibka uu ka mid yahay. haddaba intaas ayaynu inaga soo qaadana maanta. haddaba adigu ma taqaanaa fanaaniin kale oo iyagu wax heesa ah isla qaadin sabab kasta ha ku timaado isla qaadis la'aantooda heesahe? nagala qayb qaado barnaamijka. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta. dib dambe intaynu ugu kulmi doono barnaamij caynkan oo kale ah waxaynu idinkaaga tegaynaa nabadiino nooli kulanti iyo ammaano Allah.